buuxiyay waxaan uu ka dhacay xerada afka hore ee Exfiore ee magaalada Muqdisho kaasoo sababay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dadka ku dhintay weerarkan ayaa waxaa la sheegay inay gaarayaan ilaa 10 halka ay dad badanina ay ku dhaawacmeen. waxaana ku jiray sida warku ay sheegayaan ninkii watay gaarigii lagu fuliyay qaraxa ee naftiisii haligay. sida wararku ay sheegayaan oo kale qaraxan ayaa waxaa lala beegsanayay taliyaha ciidanka nabad sugidda ee gobolka Banaadir Colonel Khaliif Axmed Erega. qaraxan waxyeello badan ayuu u geystay waxaana gubtay 2 gaari oo kuwa dadweynaha ah iyo dadkii ay sideen. sidoo kalena waxaa ku dhintay dad badan oo ku jiray maqaayad ku taala afka hore ee Exfiore oo aad ugu dhow xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya ayaa ahayd goob ay dad badan ay ku sugnaayeen marka uu qaraxu dhacayay. waxaana soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo halkaas oo dhan isku gadaamay. ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan ismiidaaminta ah. sidoo kale kama aysan hadlin wali madaxda dawladda Soomaaliya. waxaana uu ka mid noqonayaa weerarkani weeraro dhowr ah oo ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyada dhowrkii bilood ee jirtay dawladdan cusub. weerarkan ayaa ah kii ugu xoog badnaa ee dhacatan iyo markii la dhisay dawladdan uu hogaamiyo Xasan